Assalaamu calaykum akhyaarta. Maanta waxaan ka hadlaynaa caadooyinka noloshaada beddelaya oo ay tahay inaad raacdo. Waxaan kula wadaagayaa caadooyin haddii aad raacdo aad noloshaada ku beddeli karto, aanad u noqon karto qof guulaystay. Lambarka koowaad, samee habdhaqan subaxnimo. Habdhaqan subaxnimo waxaan ka wadaa samee subax walba wax aad ku tala gashay, ama mataqaanaa jimicsi samaysaya ama wax akhrisaya. Samee habdhaqan subaxnimo oo ha noqon qof subaxdii hurdada ku daaha ama subaxdii iska seexda. Lambarka labaad, deji yoolal. Haddii aad dejin yoolalkaaga, run ahaantii ma noqonaysid qof noloshiisa mataqaanaa beddelay. Waa inaad yoolal dejisaa oo aad hadaf aad leedahay. Lambarka saddexaad, ogow mudnaantaada ama sidaad wax walba ay u kala mudan yihiin. Lambarka afraad, nolol dheelitiran. Nolol dheelitiran waxaan ka wadaa inaad noloshaada inaad hal mid ku ilaawin, inaad noloshaada balance ka dhigtid, wax walbana aad samaysid ama wax walba aad dhexdhexaad ka dhigtid. Lambarka shanaad, u maamul lacagtaada ama qarashkaaga si caqligal ah ama macquul ah. Haddii aad lacagtaada iska khasaariso, run ahaantii noloshaada mataqaanaa ma beddelaysid, waxaad noqonaysaa qof khasaaray. Lambarka lixaad, wax badan akhri. Haddii aad wax badan akhriso noloshaada waad beddelaysaa, wax badan baadan ogaanaysaa. Horey ayaa loo yidhi wax badan akhri si aad wax badan u ogaatid. Lambarka toddobaad, ka fikir 2 jeer inta aadan hadlin, sababtoo ah hadalka boobsiiska ama aan laga fikirin wuxuu kugu dhalin karaa mataqaanaa degdeg iyo mataqaanaa inaad natiijo xun kala kulanto. Marka mar walbo aadan hadlin hadalkaaga ka fikir. Lambarka 8aad, la soco dadka saxda ah. Dadka saxda ah waxaan ka wadaa dadka wanaagsan ama mataqaanaa dadka saxda ah oo mataqaanaa macquulka ah. Marnaba ha la soconin dadka liita ama dadka aan saxda ahayn. Lambarka 9aad, waqti geli naftaada. Waa inaad waqti gelisaa naftaada si aad u horumarin lahayd. Waa inaad diiradda saartaa naftaada si aad dhinac walba aad uga dhisi lahayd. Lambarka 10aad, waa inaad barataa inaad dadka u mahadceliso. Markii aad wax hesho waa inaad dadka u mahadceliso. Markii mataqaanaa adiga laftaada aad wax laga qaato waa inaad dadka u mahadceliso. Markii wax lagu weydiisto waa inaad dadka u mahadceliso. Waa inaad barataa inaad dadka u mahadceliso. Qof haddii aad wax siiso way adag tahay inaad u mahadceliso, laakiin mararka qaar way wanaagsan tahay inaad dadka oo dhan aad u mahadceliso. Sababtoo ah mahadcelintu waa wax mataqaanaa aad iyo aad u weyn. Qofka bilaadankaana wuxuu abuuraysaa dareen degan. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iiday. Haddii aad qaadato dhaqamadan ama caadooyinkan aad samayso maalin walba si joogta aad u samayso, run ahaantii noloshaada waad beddelaysaa.